بعد سلام dhammaan maamulka Hirshabeelle maamulka wasaaradda waxbarashada uu hogaaminayo mudane Goodax inaga soo booqday caasimadda Soomaaliya Muqdisho soo dhawaada leenahay wasiirka amniga dhammaan wixii mansub iyo musaasab meeshan ku fadhiyo waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacd salaam aniga ku hadlayo magaca ardayda Soomaaliyeed ee tiradoodu gaarayso 31,000 ee ka baajisay wasaaradda waxbarashada imtixaanka ee u fadhisay waxaan hadallada qaar ardayda qaar ka soo fulayso in ardayda 31,000 inta badan ay xanuunsadeen dhawaaqii hadalkii ka soo baxay wasaaradda waxbarashada darteed qaarkood ay ku sigteen inay waashtaan qaarkood ay noqdeen dad iska jiifo oo kaliya inay xanuunsiin inay fiyooyin la kala aqoonin waa ardaydii 31,000 arday kamid ah sida nagu soo gaaraya dadka qaar kuwa qaarna indhaha ku aragnay arintaasna waa arin xanuun leh ee ka soo baxday wasaaradda waxbarashada maamulka federaalka Soomaaliyeed waxaan salaamayaa wasiirka amniga walaalkay waxaan salaamayaa madaxweyne ku-xigeenka Ali Cabdullaahi Guudlaawe dhammaan waxaan salaamayaa dalladda waxbarashada waxaan salaamayaa ardayda ciyaalkayga ah waxaan salaamayaa ilaahay oo afkayga beenkahay gabdhahayga anigoo ku hadlaya magaca guddiga waalidiinta maamulka Hirshabeelle khaasatan iskuulka miyaha baarlamaanka Hirshabeelle wasiirada iyo xildhibaanada reer Hirshabeelle waalidiinta ardayda maamulayaasha iskuulada guddiga madaxweynuhu xil saaray arintan inay fiiriyaan kolleegiskayga asxaabtayda ay la socoto xamriga la timid dhammaantiin assalaamu calaykum salaan kadib waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ee nagu marti qaaday fursadna siiyay inaan dhageysano xanuunka iyo dhibka iyo aragtida iyo fikirka iyo dareenka ardayda iyo waalidiinta iyo bahda waxbarashada guud ahaan ee reer Hirshabeelle aad uga mahad celinaynaa fursadaas uu siiyay waxa kale u mahad celinaynaa maamulka intiisa kale soo dhaweynta wanaagsaneed ee soo dhaweeyeen iyadana aadan ka mahad celinayn waxaan jecelahay sidoo kale ardaydii iyo waalidkii iyo waxaan rabaa inaan meeshan ka qiro in waxa dhacay wax xanuun badan ay tahay runtii wax aad u xanuun badan waa qiraal waa markhaati madoonto waa dareemi karaa qof walbana waa dareemi kartaa in ay xanuun badan tahay weliba waqtiga imtixaan ku soo toosay oo bishii barakaysnaa ahayd in muxuu ahaa fashilka noocan uu dhaco runtii way xanuun badan tahay xanuunkaas wasaarad ahaan iyo xukuumad ahaanba waa idla wadaagaynaa sida maamulka iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle ay idil xanuunsadeen ayaan idil xanuunsanaynaa waa xaqiiqo jirta taas waxa intaas dheer haddaan warbixin yar idin siiyo fashilkan 104 goobood ayaa imtixaanka laga qaadayay oo 2 goobood ay ka mid tahay Jowhar 104 goobood ayaa laga qaadayay hal goob ninaan aaminay oo weliba waay araga oo imtixaankii hore wax ka qaaday oo kormeera ahaa ayaana fashiliyay bismillaahir rahmaanir rahiim madaxweyne ku-xigeenka kusumaha gudoomiyaha baarlamaanka wasiirka amniga iyo wasiirka arrimaha waxbarashada ee Soomaaliya wasiirada Hirshabeelle iyo xildhibaanada la taliyaasha heerka sare oo xafiiska ra'iisul wasaaraha waalidiinta ardayda culamaa u diinka bahda waxbarashada oo iskuulaadka
إن الله أنتي كرامة هل كان كفر لسمودن كين يمجعنا إذا كسلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii ardada iyo waalidiinta iyo bahda waxbarashadu waa soo gudbiyeen dhibka meesha ka dhacay intuu la egyahay waqtiga arintu dhacday siday u dhacday saameynta ay yeelatay runtii waxaan aaminsanahay oo aan bogaadinaynaa talaabtii ugu horeysay waa la qaaday dhibaatadaas dadkii geystay in muxuu ahay dadkii ugu horeeyay la qabtay muxuu ahay laga abaal mari doono كل باريتانا كسعودة لكن أنا قلتهم وحنقبنا دبكانوا هالقف إنه كوين يهي لكن باريتان كان شيء جدونا أنا كهرد عمينه سدتك محوها دلني يردا يوالدين تا يماملك يسيستم كورد من بكل سونو وقبو وحن رجينا إن عدالة داس لما يستري دونه وهرت أرنتاس حساب رسمي لقى سمين دونه arinta labaad waxba uga noqon maayo imtixaanka dhacay iyo sidoo ku dhacay arday waa soo wada ahaan jirnay qisha dhacay iyo ma dhicin qofkii wax bartay oo isku kalsoono asigoo qish jiro waxbarashadiisa iyo imtixaankiisa siday too ku qaada jiray laakiin saasay tahay systemkii waa la gilgilay xalayna u baahan tahay sida waalidiinta iyo mas'uuliyiinta kale ay u sheegtay annaga dhibaatada dhacday waxba nooga daran koow waxa noo daran in mustaqbalka dhalinyarada iyo shahaadadooda iyo karaamada shahaadadaas leedahay iyo jaamacada in la aqbali doono inaysan shaki la gelin oo waswaas la gelin oo aan la durin dhalinyarada waxaan rabaa inaan u sheego arintaas hadda waa idila fududahay laakiin arin saameyn la waay dhalinyaradu loodlooday u xisaabtamaan aniga hadda idila hadlaayo waqtigii muxuu ahay af Soomaaliga iyo af Ingiriisku ay kala wareegayeen waxaan ahaa ardadii lodkii ugu dambeeyay af Ingiriisi wax ku barta lodkii naga dambeeyayna af Soomaaliga wax ku barteen dadkan isku loodahay waa la sheegaa lodkii Ingiriisku dambeeyay maadaheed lodkii af Soomaaliga lagu bilaabo maadaheed saasaan isnaa annagu ma rabno in lodka 2018 iyo 19 shahaadadooda magacooda mustaqbalkooda in mugdi la galiyo ma rabna taas noogu muhiimsan waxa kale oo noo muhiimsan dibkii dhacay in laga garaabo laga raali bixin geliyo muxuu ahay laga bixiyo muxuu ahay ii sheeg raalinimo ardada loo naxariisto waqtiga imtixaanku dhacay la tixgeliyo waqtiga uu dhici doono la tixgeliyo runtii inkastoo wasiirku ka hadlay duruufaha keenay haddana xalay waxaan akhrinayaa report wadan muxuu ahay Yurub ku yaala oo imtixaankiisa dib loo dhigaayo maadaama ay Ramadaan ay tahay imtixaanka GCC la yiraahdo oo systemka Ingiriiska hadayba wadanan muslim ahayn oo Ramadaankii dirtiis karaamo oo imtixaanaadkii oo dib u dhigaayo oo waalidiinta u tixgelinayo annagu waa qabnaa inaan tixgelino waliba Ramadaanka oo sii dhamaado oo ciidda loo sii dhawaado oo tahajjudkii la galo dhibkeeday leedahay taa ka hor dhici mayno laakiin sida dareenkeena aanu jeesanayna qodobka saddexaad waxa waaye imtixaankan imtixaan caam waaye oo standardized test wadanka dhan hal mataqaana cabira wax lagu cabira Soomaaliya wax la qabnaa si gaar ah anagu dhibaato gaar ah ma qabno hal gaarana raadimayno halkii Soomaali oo mataqaana xalaha anagana xal noo ah yaa loo fahmin marka aan leenahay waxbarashadeena mas'uuliyadeedii aan qaadanay waa u taaganahay xuquuqda dhalinyaradan u taaganahay xuquuqda waxbarashadan u taaganahay waxana noo qaadmin inaan qaadanaan u taaganahay dhalinyaradeen inaan meel fiican ku hubsanaan u taaganahay laakiin maadaama imtixaanku imtixaanka shahaadiyo oo yahay oo wadanka dhan oo iskaga mid yahay mar rabno haddana in la dhaho sidii tii koobaad oo kale reer Hirshabeelle waagi xogaa waa dagaalameeno imtixaan gaar ah laga qaado marka sidaas daraadeed shahaadadooda waa la duray ma rabno waxaan rabnaa wixii Soomaali u dana meeshay Soomaali marto ayaan anaguna maraynaa mudane wasiir waad maqashay culayska jira waad maqashay dhibaatada jira dhalinyarada waxaan leenahay waxa ama social media lagu sheegaa ama mataqaana hadallada xoogaa mataqaana fafakaday annaga idinka raali gelinayna annaga madaxdiiniya annaga idinka taagan muxuu ahay muwaadiniinaad tihiin xuquuqaad leedihiin xaqaad u leedihiin inaad qaylisiin xaqaad u leedihiin inaad dareenkiina muujisiin
leedku duri maayo taas leedku shaambaday maayo annaga u taagan xuquuqdiina inaan maxuu ahay inaad heshaan adikuna kalsoonida aad nasiiseen waa idinka mahad celinaynaa go'aanka ugu dambeeya oo arintaas ay qaadan doonto annagoo arrimahaas ay u kala horeeyaan ka fiirinayna waxaan kalsooni ku qabnaa in wasaaradda iyo dawladdeena iyo dawladda Hirshabeelle oo isla socda inay go'aan waafiya oo ujeedadu ay tahay mustaqbalka dhalinyarada inaan mugdi la gelin imtixaanku inuu nadiif noqdo cadaaladu ku jirto hal sidaas inaan isla helno dhalinyaradana waxaan leenahay kalsooni waxbarashadiina ku qaba waalidiintiina ku qaba madaxdiina ku qaba waxaanan idii qalmin annagaanan idii soo qaadeen idinkana taas ku seexda aad u mahadsantihiin wafdiga noo soo safray oo wasiirada ah oo intaas noo yimid aadaan uga mahad celinaynaa inay dareenkeena iyo culeyskeena dhageystaan wixii ka soo baxa wada hadalladaas iyo wixii mataqaanaa sida wax la yeeli doonane annagaa idii joogna annagaa miiska idii fadhina annagaana idinku soo celi doonna wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu